بسم الله الرحمن الرحيم halkani wuxuu ku sida media ee ka faalooda arrimaha siyaasadeed sirdoonka haatan ku soo dhawaad muuqaalkeena maanta kooxda Taliban ayaa si aad u sii xoogaysanaysa kadib markii ay Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka isaga baxeen dalka Afghanistan balse Turki wali doonaysa inay ka cararto garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul si amnigiisa loo sugo wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga Hulusi Akar ayaa Arbacadii sheegay in faa'iido weyn ay ku jirto xaqiijinta in garoonka Kabul si furnaado go'aan arintaas la xiriirna la gaari doono maalmaha soo socda Mr. Akar oo ku sugnaa safaaradda Turkiga ayaa sidoo kale Khamiistii sheegay dawladdiisa inay ku jirto wada hadal ku saabsan sidii ula wareegi lahayd howlgalka garoonka Kabul ma jiri doonaan wax wala diblomaasiyad ah oo ka socon doona dalka Afghanistan haddii albaabada la isugu dhufto garoonka diyaaradaha Kabul ayuu yiri Mr. Akar isagoo hadalkiisii wata ayuu intaasi ku daray waa sidaasi sababta aanu doonin in garoonka Kabul uu sii furnaado maalmaha soo socda wax ku saabsan arintaasi ayaa dhici doona laakiin kooxda Taliban ayaa uga digtay Turkiga inay ciidamo geedo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters Turkiga ayaa raba in Kabul ciidamo geeyo xilli ay faraha ka sii bixiso xaaladda Afghanistan maadaama kooxda Taliban ay wadaan weeraro ay wadankaas ku qabsanayaan xoogagga Taliban ayaa maalmihii la soo dhaafay gacanta ku dhigay in badan oo magaalooyinkaasi kamid ahaa hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in il gaar ah ay ku hayso xaaladda ka taagan Afghanistan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka dalbaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ciidamo u diro garoonka Kabul kadib markii Afghanistan ka baxeen ciidamada NATO waraysi madaxweynaha Erdogan Arbacadii si telefishinka CNN ee laga leeyahay Mareykanka ayuu ku yiri waxa dhici karta inaan Taliban kala hadalno khalalaasaha ka socda Afghanistan hay'adaheeda qaabilsan arintaasi ayaa ka shaqeynaysa sidii aan kula kulmi lahaa madaxweynaha Taliban aniga qudheeda waxaan la kulmi karaa mid ka mid ah hogaamiyaasha Taliban sidoo kale ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay inuu ku howlan yahay dadaalo la xiriira sidii uu miiska wada hadalka isugu keeni lahaa Turkiga iyo Taliban Arbacadii ayuu Khan warbaahinta caalamiga u sheegay hadalladaasi kadib markii uu Islamabad kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Imran Khan ayaa yiri aad bay u fiicnaan lahayd haddii Turkiga iyo Taliban ay wada hadallo si fool ah labada dhinac ay isugu imaan lahaayeen waxay ka xajoon karaan sida muhiimka ay u tahay in garoonka Kabul oo amni ahaado sababtaas darteed ayaan ula hadlaynaa Taliban si wada xaajo toos ah ula furaan Turkiga ra'iisul wasaare Khan ayaa sheegay in dawladda Afghanistan ay aaminsan tahay in Pakistan ay wax u sheegi karto Taliban laakiin sida dhabta way adag tahay inay wax ka dhaadhiciyaan madaxda kooxdaasi su'aasha isweydiinta badan waxay tahay muxuu Turkiga u doonayaa garoonka diyaaradaha ee Kabul garoonka diyaaradaha Kabul wuxuu ku yaalaa meel u dhow xaafadda ay ku yaalaan dhammaan safaaradaha dalka caalamka ay ku leeyihiin Afghanistan waana meel aad istiraatiiji u ah sidoo kale garoonka wuxuu si buuxda isugu xiraa Afghanistan iyo caalamka intiisa kale wuxuu kaalin weyn ka qaataa in gargaarka la gaarsiiyo dadku dhibaataysan wadankaasi ee dagaaladu haleeleen Afghanistan waxay dunida kala go'aysaa isla markaana ay dagaalyahanada Taliban la wareegaan gacan ku haynta garoonkaasi sidaa darteed dawladda Afghanistan waxay dan ugu jirtaa inay aqbasho yaboha Turkiga ee ku aadan sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul waxaana ugu jirta laba faa'iido tan koobaad waa inay ilaaliso xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay dalka reer galbeedka tan labaadna waa inuu sii furnaado albaabka kaalmada ee bini'aadamnimada Taliban diyaar maaha hoggaanka kooxda Taliban ayaa uga digay Turkiga arintan iyagoo sheegay in go'aanka ku saabsan la wareegista amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib bixitaanka ciidamada Mareykanka oo yeelan kara cawaaqib aad u xun ay tabisay warbaahinta Mareykanka afayaan u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Zabilullah al-Mujaahidiin ayaa Turkiga u sheegay isbuuc la soo dhaafay in talaabada noocaasi ay tahay mid talo xumo ah xadgudub ku ah madaxtinimada dhul ahaaneed ay ku leeyihiin wadankooda kana soo horjeeda danahooda qaran balse dawladda Afghanistan ayaa sheegatay in waajibaadka ciidamadooda amniga ay tahay inay ilaaliyaan garoonka diyaaradaha iyagoo raalli ka noqonaya inay caawinaad ka helaan wadan kasta oo saaxiib la ah ayna soo dhaweeyaan hada warbixintan maanta inii waday halkan ayay ku eg tahay wixii kale oo siyaasadda ka soo gudboonaaday arrimaha sirdoonka halkan ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah